Sayla waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taala gobolka Awdal ee waqooyiga Soomaaliya. Magaaladan waxay ku taalaa waqooyi bari gobolka Awdal, waxayna aad ugu dhowdahay waddanka Djibouti oo ay u jirto ilaa 120 kiiloomitir. Juqraafi ahaan markaan eegno magaaladan, dhanka bariga iyo waqooyiga waxaa ka xiga gacanka Cadan, galbeed waxaa ka xiga dalka Djibouti, halka magaalada qadiimka ee Harar ay u jirto 320 kiiloomitir. waa magaalo qadiim ah oo leh taariikh fog. magaalo xeebeedka Sayla oo la aaminsan yahay inay ka mid tahay magaalooyinka Afrika ugu faca weyn. waxaa tagay sahmiyaal u dhashay Griigii hore iyo Roomaankii. qarnigii koowaad ayay sheegeen in magaaladu dhisnayd lahaydna maamul dadka xukuma. taariikhaha qoran ayaa sheegaya in markii diinta Islaamku ay soo gaartay geeska Afrika inay ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay ee laga qaatay shareecada. waxaana taas daliil u ah masjidka la yiraahdo Qiblatayn ee magaaladani ku yaala. masjidkan waxaa la aaminsan yahay in la dhisay wax yar kadib markii saxaabada Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay u soo hijroodeen dhulka Ardul Xabasha. sababta masjidkan loogu magacaabay Qiblatayn ayay taariikhyahanadu ku sheegeen in masjidkan uu dhisnaa ka hor intaan qiblada loo soo wareejin Kacbada oo loo tukan jiray dhanka Masjidul Aqsa. tan iyo waagaas magaalada Sayla waxay ahayd hoy waxbarasho, xarun ganacsi, dhaqan iyo ilbaxnimo. bartamihii qarnigii 9aad ayay magaalada Sayla waxay saldhig u noqotay boqortooyadii Cadal, taas oo ka talin jirtay deegaanadaasi muddo qarniyo ah ilaa laga soo gaaray qarnigii 14aad. markaas kadibna waxaa magaaladani qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxaana uga sii dambeeyay gumaystaha Ingiriiska. dhulmareenkii la dhihi jiray Ibn Battuta oo tagay magaalada Sayla sanadku markuu ahaa 1930, waxa uu ku tilmaamay inay tahay magaalo weyn oo ilbaxnimo ay ka jirto. magaaladan waxaa ku taala dekedda ugu faca weyn dhulka Soomaalida, waxaana la aaminsan yahay in xeebaha Sayla waxa lagala soo degin jiray muddo haatan laga joogo 6,000 oo sano ka hor. sahmin la sameeyay sanadihii 1988 waxaa lagu ogaaday in xeebaha Sayla uu ku jiro ceel shidaal oo aad u weyn, kaasoo xilligaas lagu magacaabay ceelkii shidaalka ee Shabeel. Sayla sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inay tahay goob ku wanaagsan hagista iyo dirista dayax-gacmeedyada marka loo fiiriyo Afrika iyo Aasiya. sidoo kale waa goob ku wanaagsan isgaarsiinta badda iyo berrigaba. inkastoo Itoobiya ay ku haminaysay inay qabsato dekedda Sayla muddo aad u dheer, haddana waxaa la aaminsan yahay in damaca Itoobiya ee Sayla uu soo xoogaystay sanadkii 1955. Itoobiya waxay doonaysaa in xeebaha Sayla ka samaysato saldhig ciidan, sidoo kalena ay ka dhoofiso shidaalka kilinka shanaad laga soo saaro.